taliyihii hore ee sirdoonka haatanna ah xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe ayaa barta uu Facebook-ga ku leeyahay ku daabacay xaaladda siyaasadeed ee dalka sida hadda lagu wado sax maahan haddii aan wax laga bedelin dad horay iskula sii socday kuma sii wadan socon karaan sidaas ayuu qoray macnaha qoraalkaas ayaa ah inuu treenkii ka dhacay maadaama uu ka agdhawaa madaxweynaha haatan dalka ka rimiyo Xasan Sheekh ugu dambeyntii xogo hoose oon helnay ayaa tibaaxayo in xildhibaan Odawaa qudhiisu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya labadan mudane oo kala ah xildhibaan Odawaa iyo xildhibaan Sambaloolshe ayaan ka soo muuqan ansixintii ama baasmareyntii dastuurka ay ku sameeyeen golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilliga kala guurka ah ama ay gabagabo noqoto muddaxileedka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka dhasho isqa qabsiga mucaaradka iyo dowladda isqa qabsiga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo waliba intii fila Soomaaliya isla joogtay oo isnacdo kala tagto kala fikir noqoto wixii warar ah oo ku soo kordho waxaad kala socon doontaan Radio Halgan iyo waliba bartan Facebook